بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaaleyga qaaligaa soo dhawaada kusoo dhawaada janalkeena caafimaad janal. insha allah maanta waxaan rabaa topic caafimaad oo aada muhiim u ah inaan ka hadlo oo dad badan iga soo codsadeen. topigeena haddaba maanta waxaa waaye cambaarta. afka qalaad ama af ingiriiskana waxaa lagu yidhaahdaa ringworm ayaa lagu dhahaa af ingiriiska. insha allah maanta mowduucaasaan ka hadli doonaa, walaalaha qaaliga ka faa-iideysta insha allah. haddaba cambaartu waa cudur aada u faafa oo ku dhaca maqaarka caruurta inta ka badan 2 sano, yacni ilmaha 2 sano ka badan ayuu ku dhacaa badanaa cambaarta. cudurkaani sida dad badani aaminsan yihiin ma keenaan gooryaamadu. magaca laatiiniga ah waxaa loogu yeeraa ringworm oo macnaheedu yahay gooryaankii wareegsanaa. magacaasi wuxuu ku yimid marka cambaartu ay haleesho maqaarka ayay waxay ka sameysaa oogada ama qeybta sare qaab goobaabin oo kale ah, saas ayuu magacaan ugu baxay. cudurkaani waxaa keena jeermis ama waxaa sababo jeermis ilma aragta ah oo isha bini-aadanka aanay qaban karin. jeermiskaas waxaa lagu magacaabaa fangas. jeermiskaani ma wareero oo keliya oogada jirka ee wuxuu haleelaa xubnaha kale maqaarka sida cidiyaha, lugaha iyo timaha iyo madaxa dushiisa. haddaba haddaan soo ogaana waa maxay cambaar, waxaa muhiim ah wax walba calaamad ayay leeyihiin. calaamadee isku arki kartaa haddaad cambaar qabto. calaamada ugu horeysa ama ugu weyn ee cambaarta waa iyadoo ilmaha yeesho finan ama nabaro cambaareed. inta badan waa goobaabin, nabro goobaabin leh oo haddana qolof khafiif wato. goobaabintu cambaarta inta badan dhexda waa ka nadiif. nabrahani waxay u muuqan karaan kuwo qalalan ama kuwa leh finan qoyan. marka uu fangaska ku dhaco dusha madaxa, caruurta inta badan ma sameysato qaabta wareegsan, laakiin waxaad arkeysaa nabro yaryar oo tiix ah oo qolof leh oo ka duuliya timaha madaxa. waxaa laga yaabaa inaad ku aragto qurtuno ama wax isku guntan oo timo ah oo kasoo jeeda meeluhu timuhu ka daateen. waxaa maqaarku madaxu yeelan karaa nabro bararsan oo cuncun badan leh oo afka malax ku wato. haddaba haddaan soo ogaano calaamadaha iyo maxaa la yidhaahdaa cambaar, waxaan u gudagelaynaa sidoo loo daaweeyaa. daaweynta waa 2. daaweynta qofka inuu qaato kaniiniyaal iyo boomaato. aniga hadda inta kaniinigaas qaado kuma dhihi doono sababta oo ah cambaartaada noocay tahay iyo meesha kaaga taalo maan arkin. waxaa muhiim ah dhakhtar inuu arko. waan awoodaa hadda inaan daawo hiblaayo qaat idin dhaho, laakiin dadka waaweyn, ilmaha yaryar iyo dadka sidoodaba nabraha isku nuuc ma aha. waxaa wanaagsan qof walba nabarkiisa markii la ogaado in dhakhtar u tago oo daawo loo soo qoro siduu u qaadan lahay waxaasna loo sheego. laakiin hadda ani waxaa idiin sheegayaa waxyaalaha qofka markuu gurigiisa jooga kaa caawin karo, ama waxyaalaha gurigaada aad ku sameysan karto, ama qaabkii aad uga hortagi lahayd, ama waxyaalaha easiest ama ugu fudud ee aa isaga caawin karto cudurkan. haddaba aan u gudagalna sidee loo daaweeyaa cambaarta. nabar ama fin kastoo maqaarka cunugaaga kasoo baxo waxay istaahilaan inaad la socodsiisa dhakhtarkaaga. daaweynta cambaarta maqaarka aad bay u sahlan tahay. dhakhtarkaaga iyo farmashiistuhu waxay kuu qori karaan boomaato jirka la mariyo 2 jeer maalintii muddo dhan 3 ama 4 isbuuc. xaqiiji inaad ilaa isbuuc kale daaweynta sii wado kadib markay calaamadaha cambaarta qarsoomaan. ku subkidda ama in la mariyo boomaato kadib iyo ka hor markaad cunuga boomaatada u mariso, intaadan u marinin iyo markaad u marisaba waa inaad dhaqdaa gacmahaaga. marka ugu horeyso boomaatada xoogaa yar mari maqaarka oo sug cabaar si aad u ogaato in ilmuhu boomaatadaas alerji ku yahay ama in kale. waxaa la rabaa boomaatada cunuga marka hore kas yar ku tijaabi, sug cabaar. cunuga hadduu isxoqid iyo nabro kale kasoo baxaan alerji ayuu ku qabaa, boomaatadaas ka dhaaf. laakiin haddii caadi tahay waad u marin kartaa. daaweynta cambaarta ee madaxa yari waxay u muuqataa inay adag tahay. dhakhtarkaagu wuxuu kuu qori karaa daawo antifangal ah sababtoo ah cambaarta waxaa keena fangal. marka daawo antifangal waa in lagu qoraa oo afka laga qaadanayo. boomaato madaxa lagu subkaayo ama madaxa la marinayo ama meelaha ay cambaarta heshay, iyada noocyada shaambooyinka ee loo yaqaan anti dandaraaf.
Anti-dandruff waxaa waaye shaambooyinka agoolka ama nabraha ee madaxa la marsado. Waxaa laga yaabaa daaweyntooda inay dheeraato. Yacni cambaarta markay madaxa tahay way ka yara adag tahay kuwa kale. Haddaba markaad daawooyinka qaadanaysid maxaa laga rabaa gurigaaga inaad ku sameyso. Daawada inaad qaadato kaliya looma baahna waxaa jira waxyaalo badan oo laga rabo inaad sameyso markaad daawada qaadanayso. Ugu horeyn waa inaad dhaqdaa gogasha iyo dharka caruurta ee cambaartu heshay markay daawadu bilaabato. Lambarka labaad, dhar saaid ha u gelin ama dhar badan ha u gelin ilmaha si ay dhidid badan u sameyn oo nabrihi u sii badanin. 3. Ha u ogolaanin gogasha caruurtaada sida kuwa wada dhashay inay isku meel isla isticmaalaan, inay dharka wadaagaan, shukumaanada inay wadaagaan ama buraashada timaha iyo shanlooyinka. Yacni ilmaha kala ilaali, isku meel yay seexanin, isku firaash yay seexanin, shanlooyinka iyo dharka intaba yaysan wadaagin. Haddii ilmuhu uu bilaabo isxoqid ka jar cidiyaha. Cunuga hadduu bilaabo nabarka inuu xoqo sababtoo xoqid way uga sii dareysaa. Ka jar cidiyaha oo si uu u waayo wax uu ku sii xoqo. Waxaa kaloo muhiim haddii aad awoodid cunugaaga inaad u qabeysid maalin walbo. Marka cambaarta waxay ka mid tahay cudurrada aadka u faafo oo la isku daaran karo. Waxaa muhiim ilmaha in la kala fogeeyo oo cunuga cambaarta ku dhacday kaligiis qol la siixiyo si ilmaha kale ay dhibaatada u gaarin. Marka walaalaha qaaliga insha Allah mahadsantihiin. Cashirkeena maanta halkan ayuu noogu egyahay. Waan filayaa inaad ka wada faa'iideen insha Allah. La wadaaga walaalihiin kale si ay uga faa'iideystaan talo iyo tusaale wixii qaybta commentiga noogu soo qora. Insha Allah topigaad jeceshiin inaad ka soo hadlana qaybta commentiga ugu soo qora. Waan idin tixgelin doonaa asxaabteeda qaaliga. aad ayaa idin jecelahay. Waa mahadsantihiin insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.